anfacayo wax ku kordhinaya wayna doorataa wayna tijaabisaa inta badan saaxiib wax ku dheer inuu noqdo hadduu saaxiibkaagu buug la akhriyo noqonayo wayna doorataa buugga iyo noociisu waxa uu yahay mid wax ku kordhinaya waa inuu noqdaa mid aan dhib kugu hayn waa inuu noqdaa hadduu noqdo saaxiibkaagu TV aad daawanayso waa inuu noqdaa TV iyo program wax ku taraya TV-ga inta ugu badan dadka maanta jooga in jaamacado waqti lagaga baxo waqti ka badan bay TV daawadaan haddaad imka xisaabiso cimrigaaga intaa TV daawanaysa maxaad faa'iiday waxaa laga yaabaa kulli yoom ka ugu yar inuu yidhaaho warka iyuu ina dhaafin oo 2 jeeroo wara uu dhegaysto saacad buu hor fadhiyey kii isagu kubadaha iyo cayaaraha daawanaya ama aflaamta daawanaya isaga dhaaf kuwaas waxaa laga yaabaa maalin iyo habeen kasta 3-4 saacadood inuu tago ka waran jaamacadaad maalin iyo habeen kasta 4 saacadood soo dhigayso dad jaamacad gasho 4 saacadood oo waqtigaaga ka mid aad siiso yani waxaad doontaa diyaarin karaysaa shahaadada ugu sarraysaad qaadan karaysaa waqtigii qofkani uu shahaado ku qaadanaya adiguna TV baad ku qaadatay eesha natiija marka bal qiyaas qofkii 4 saacadood waxbarasho geliyey diin geliyey cilmi geliyey iyo qofkii 4 saacadood TV geliyey maxsalada maxuu natiijadu noqonaysaa markaynu mid walba 5 sanadood kadib u xisaabino ama 10 sanadood kadib u xisaabino kii 4 saacadood maalin kasta wax baranayay iyo kii 4 saacadood maalin kasta TV ba hor fadhiyay labaduba laba saaxiib bay lahaayeen labadii saaxiib wixii ay ku akhriyeenna laba manfaco kala nooca ka soo baxaya khoti fi al-aqida marka waxaan leenahay saaxiib waa inuu noqdaa kow dadka dhexgalkoodu haddaanay waxba kugu kordhinaynin gooni joogaa dhaata haddaanu dadku wax kugu kordhinaynin inaad waxba xidhiidhkooda badin ayaa dhaanta inta aad adigu wax ku kordhinaysa mooyaane inaad badsanin walidaalika abu dardaa baa waxaa laga sheegaa la saaxibun saalixun khayrun min alwaxda waalwaxdatu khayrun min saaxibi suu wa mumli lkhayri khayrun min asaakit والساكت خير من ممل الشر صاحبك ونكسني بويلي كليدك في عيني كلنمدنا صاحبك حبك ونكسنت بويلي كخيرك كوشي يا كآمصنك في عيني بويلي كآمصننا كان شركك قوة الرمي وكونكسن يهوت المامي وحا هبون مركا هنا ضدك أهل البدعة dadka ahlu sharka ah majaalista bidca iyo khayr beelka lagu hayo majaalista fadhi ku dirarka iyo warka lagu hayo inaad badsanin ama aan tagin inaad tagto majaalista dadka khayrka qaba joogaan iyo meelaha wanaaga lagu hayo khayrka lagu hayo inaad tijaabiso inaad la saaxiibto cid adna wax kugu kordhisa adna aad wax ku kordhin karto النبي عليه الصلاة والسلام حديث وحلق ورنا يا إنه من سمع بالدجال فلينأ عنه منك الدجال كما قلاه كفوا هذا ابو نبي يو حقي سوكعي ضاد بقش الدجال بهلك كصوبحي حقي سهق ابو نبي فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به بما معه من الشبه حتى يتبعه وحد عيسى إنه ننكو uu tago isagoo mu'mina dabeetana siduu shubahiisa iyo wixiisa ugu akhrinayo uu diinta kaaga saaro dadka khayr beelayaasha haddaad la saaxiibto maalin walba siduu inshara kuugu sheegayo khayrku kaa tuuray dad badan oo malaaxidan noqday baa la yidhaha markii hore saalixiin bay ahaayeen laakiin dadkii ay la saaxiibeen ayaa mushkilada tan u geystay saaxiibada kuwaan khayrka qabina ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay alakhillaa'u yowmaidin bacduhum libacdin cadow ila almuttaqiin saaxiibadii maalinta qiyaamo badhba badhka kale cadow bay u yihiin kuwii ilaahay ka cabsaday mooyaane
majaalista khayrka le iyo meelaha khayrka lagu tago haddaad tagto waxaad faa'iidaysaa waa khayr. walidaalika uu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu xadiidka صaxiixa ku tilmaamaya duul majlis fadhiistay oo ilaahay dikrigiisa akhriyey oo dabeetana iyagoo wardinaya malaa'igtu ay u timaaddo oo malaa'igtu markay u timaadana malaa'ig baa jirta tawaafta buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam si xadiidka صaxiixa ku soo aroray uu tilmaamayo. dabeetana iyagu waxay tagaan un meeshii ilaahay lagu xusayo, waxay u yimaadaan duul ilaahay xusayo, duulkaasay soo dul degaan. rabbaa weydiiye subxaana wa tacaala maxay qabanayeen, isagoo og waxay qabanayeen. waxay dhahan ilaah waa kuu tasbiixsanayeen oo waa takbiirsanayeen, subxaana allah, allahu akbar, alxamdu lilah, warkaasay akhrinayeen bay idhaahdaan. miyay arkeen baa ilaahay yidhaha subxaana wa tacaala, maya kumay arag bay idhaahdaan. hadday arkaan maxay yeeli lahaayeen, ilaah weynidaada iyo mahadnaqaaga way ka sii badin lahaayeen bay yidhahdaan. maxay weydiisanayeen baa rabba yidhahdaan subxaana wa tacaala. waxaa la yidhaha ilaahu jannadaaday ku weydiisanayeen. miyay arkeen may, hadday arkaan maxay yeeli lahaayeen. waxay idhahdaan hadday arkaan jannada raadcadeeday badin lahaayeen oo xirsigeeda waa sii tiro badin lahaayeen. maxay iga magan gelayeen, waxay kaa magan gelayeen ilaahay ow naartaada naga badbaadi bay lahaayeen. miyay arkeen may, hadday arki lahaayeen maxaa dhici lahay, waxaa dhici lahaa bay idhaha ilaahu way ka sii carari lahaayeen oo naarta inay ka fogaadaan bay aad u tijaabin lahaayeen. rabbi subxaana wa tacaala malaa'igtiisaasi wuxuu ku yidhaahdaa faushhidukum annii qad gafartu lahum. dadkaasi intay isu yimi ilaahay xusayey, waxaan markhaati idinka yeelay inaan dembigooda dhaafay baa rabbi yidhahdaa subxaana wa tacaala. malaa'igtaa markaa waxay tidhaahdaa ilaahayo waxaa la joogay fulaanun laysa minhu, ninkii hebel la yidhahdaa isagu kuma jirin qolada tan wardinaysay ee wuxuu u yimi innamaa jaa'a lixaaja, dan kaluu lahaa. rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ugu jawaabaa hum اljulasaa'u laa yashqaa bihim jalisuhum. waa duul baa la yidhi ka la fadhiistaana aanu hoogin, isagana dembigiisa waan dhaafay baa ilaha yidhaha subxana wa tacaala. yacni dadka saalixiinta iyo majaalista cilmiga iyo dikriga lagu hayo haddaad iska fadhiisato waxay kuu noqonaysaa dembi dhaaf, barakadoodaa ku soo gaadhaysa. majliskan saalixa ah barakadiisaa ku soo gaadhaysa. oo maadaama ay majliskani uu yahay majlis ilaahay lagu xusayey, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku abaalmariyaa inuu dembigooda dhaafo. idan qofka saaxiib wanaagsan haddaad yeelato waxaa dhici karta la fadhigiisa in ilaahay dembigaaga ku dhaafo sida kuwani dhacday. saaxiibkaaga wanaagsani la fadhigiisu xataa inuu ku anfaco oo uu kaa anfaco in ilaahay dembigaaga dhaafo. saaxiibka wanaagsan la fadhigiisi maadaama uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, ilaahay baa wuxuu leeyahay hum اljulasaa, waa duul ka la fadhiistaana aanu hoogaynin. nin reer miyaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow qiyaamihii waa goorma qiyaamuu dhacaya. nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiisku saxiixaynka ku yaalla wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wamaa acdadta laha, oo maxaad aduu qiyaama u diyaarsatay? goortuu dhacaya iska daayo, berri hadduu dhacayo hadduu saa daba dhacee adigu maxaad u diyaarsatay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi wax badan oo camala umaan diyaarsanin ilaa annii uxibu allaha warasuulah, ilaahay iyo rasuulkiisaan jeclahay buu leeyahy. dabeetana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innaka maca man axbabta, kuwaad jeceshaad macoodaad. yacni qofku majliska uu jecel yahay iyo dadka uu jecel yahay inuu la fadhiisto waxay u badan tahay aakhiro kuwaana in lagula soo xaadiriyo. hadday shaqadaadoo dhammo noqoto kubadda inaad daawato iyo kubadda aakhiro, miyaad jeceshahay in kuwa kubadda lagula soo xaadiriyo? hadday shaqadaadoo dhamme aflaan inaad la fadhido iyo kuwa noqoto, miyaad jeceshahay kuwa in lagula soo xaadiriyo? shaqadaadoo dhammi fadhi ku dirir iyo meel dad lagu xamanayo muslim lagu laynayo inaad ka warrantaa tahay, miyaad jeceshahay in kuwa lagula soo xaadiriyo? aakhiro qofku wuxuu la soo xaadiraa maca man axbab.
عدة وناكسا صالحة راعشتي علما لك فائدة. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نبي موسى محوك لها خضر وأرام قراع فكن راعة سيو هنونك فائدة استبوا الرباين الراعة. إذن صالحين تخير باتك هليسة إلهي بات دنبك وكنا عفايا لفردقون دين بيكو شيغيا wax adduunkaaga anfacay ku sheegaya wax aakhiradaada anfacay ku sheegaya waxa haboon markaas ilaahay bay ku xasuusinaya. Abi Bakar waqtigay noloshu ku soo adkaatay ee godka ay ku jireen ee ay soo ciidankii raadinayay dul marayay ee uu yidhi hadday midkood gomadiisa eega ilaahay rasuulkiisa wayna arkayaan. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما أبو قيد هذا ما لين أبي بكر لبر ربي قد صدح كيو كالمين إلهي بحسوسيه سبحانه وتعالى. أبو بكر وادقي وإلا بك بحوك ورميونا يعني صاحب كاغا وناكسني إلهي بكو حسوسيه سبحانه وتعالى. صاحب كاغا وناكسني مرايض بكون قريات سوى أكتر. نبي عليه الصلاة والسلام وحول المؤمن مرآة أخيه. يا أبو داود باورينا إياه عراقي ابن حجر بوا حسن بيليه مؤمن ومؤمن ككلام مرايدي سوسكف يريه مرايد هذا هديت مرايد قلوعا هذا قلوعا بعد كده حموقنس مرايد هذا هديت مرايد وناكسنت هينا وناك وكتوسني haddaad qof saalixa la saaxiibto ama qof wanaagsan la saaxiibtid xumuhu kaa reebaya samuhu ku faraya wanaag oo dhan ku tusinaya. haddaad la saaxiibtid qof xunna shar oo dhan ku tusinaya. waxaan markaasi si kooban ugu soo koobaya ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ina leeyahay وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت بني الذين يخوضون في آياتنا هذا دركته هو آيات كيغا اسكد بالانا يا وحكا شيغيا دينتا وحكا شيغيا كتشي سبا إلى هيري حتى يخوضوا في حديث غيره إلى يورك لي شيء هدو الشيطان وحكوا إلا وسيي فلا تقعد بعد ذكرى بيلهي. هذا بعد عدينا مجلس فريسته أودا بتنالله بلابو حن إيو قرب إن لقى ورموه اسكاك عبا إلهي سبحانه وتعالى. هديب الشيطان ومركوا إلا وسيي مركوا وهو الرئيسات حصوصته ككعبا إلهي إليه سبحانه وتعالى. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث بإلهي. نبي محمد قل ضدك واحد كنت هذا لا يستوي الخبيث والطيب. وارقوا حن يكوى ونكسني مصر النبي إلهي سبحانه وتعالى. هو حن يكوى ونكسني مجلس كاغا هذا يكوى حمسوه فرستان أبي طالب يا نار تقي حديثك صحيح وحط المامية أبي طالب بركي أي نفته يسيب النبي قويم عليه الصلاة والسلام وحكى له يمي أبي جهل يقع خلال صعطه نبي محمد بابو حكويري عليه الصلاة والسلام هذا يوم قل لا إله إلا الله ده لا إله إلا الله كلمة أنا آخره إلهي سبحانه وتعالى هرتي سكوه الضوضة. أبي جهل ودنا عنك فرديا وحليا أترغب عن ملة عبد المطلب. أبي طالب مياد إلا بإيسا دينتي عبد المطلب ما هو مياد إن دينتي هيستين بات كتغيسا آخر كي أبي طالب وحولي ملة عبد المطلب أقول لمنها هو دينتي سيبان هيسانا نبي يقول الشيخ عليه الصلاة والسلام من آخر أهل النار كوكبيد لبك بوضع النار انت اللي قليو إن مضحة أي كفش فشورهم دون تومس كحت كليلك كباها سي نارتا إن هلك كبغ بغلين دونت
abi aalib yaa naarta geeyey saaxiibkiisaa xun abi jahl baa ku mintiday inuu naarta ku hubsado oo waktigay naftu ka baxaysay intuu dul fadhiistay idan ilaahay wuxuu ina leeyahay faacrid canman tawallaa can dikrina walam yurid ila alxayaata addunya waar ka jeesa baa ilaahay leeyahay nebigiisa calayh isalaatu wasalaam canman tawallaa can dikrina kuwa ilaahay xuskooda ka jeestay adna iskaga jeeso hala fadhiisanin walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum الnaar ha u weecannina baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kuwa dulmiga sameeya qoladaa ha la fadhiisanina oo rukuun yuu idinku dhicinina kuwaa la degtaan waayo fatamasakum الnaar baa ilaahay yidhi naar baa idin haleelaysa idin taabanaysa wamaa lakum min duuni illahi min awliyaa uma laa tunsaruun yaa layta baynii wa baynaka bucda almashriqayni fabi'sa alqariin aakhiro inaad calaacasho maaho ku biirto kuwa odhan doona aniga iyo adiga may bucda almashriqayn inoo jiraan inta cadeedka dhacya ka soo bixiisu jiraan in leeg ilaahay subxaana wa tacaala intuu ka warramay ambiyadii shuhadadii sidiiqiintii saalixiintii ayaa rabbi wuxuu leeyahy waxasuna ulaa'ika rafiiqa kuwaas baa saaxiibnimo wanaagsanaaday baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waxaan ku soo koobayaa marka ikhwatii fi lcaqiida qof kasta oo bini aadami keli noolaanshiyo ciqaab bay ku tahay kelima noolaan karo kama maarmo ciduu ku xidhmo waayo keli noolaanshiyo waxaynu idhi waa cuquubo maxkamadu ay dadka ku xukumaan oo alxabsi اlinfiraadi kama maarmo ciduu la sheekaysto ciduu humuumtiisa iyo warwarkiisa iyo walaaciisa u sheegto ciduu wakhtiga la wadaago ciduu nolosha la wadaago hadday tahay guriguu samaysta iyo reer iyo xaas hadday tahay shaqo iyo la noolaanshiiyo hadday tahay jaarnimo iyo cid lala dego nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay nin 99 qof dilay oo dabeetana u yimi nin zaahido meel fadhiya uu intuu yidhi war tusiya qofka cilmi badan leh la tusiyey nin wadaadoo meel iskaga cibaadaysanaya oo yimi oo yidhi war 99 baan dilay toobad ma leeyahay oo dabeetana uu tilmaamay inaanu toobadina jirin isagiina madaxu ka jaray 100 buu dilay dabeetana wuxuu yidhi war dadka cidda u cilmi badan ay tusiya waxaa lagu yidhi hebel baa u cilmi badan oo tagu u yimi oo wuxuu leeyahay war toobad ma leeyahay 100 baan dilay wuxuu ku yidhi oo ilaahay subxaana wa tacaala albaabadiisa ayaa xidhay yacni toobad waad leedahay laakiin markuu u sheegay inuu toobad leeyo wuxuu kaloo siiyey talatii ugu fiicnayd oo ah meesha dadka fiicani joogaan inuu qabto oo la dego wuxuu ku yidhi war magaaladan aad joogto dad xun mooryaan iyo kuwa ilaahay subxaana wa tacaala aan caabudin iyo gaal baa degan iskaga tag oo qaba maxay magaalo heblaayo tag buu yidho waxaa degan dad saalixiine kuwa intaad u tagto iyaga ilaahay la caabud subxaana wa tacaala yacni jaarka fiican xaaska fiican kitaabka fiican brograamka fiican saaxiibka fiican intaasiba aakhiro iyo adduunba waxbay ku tarayaan xaaska xun ama ninka xun jaarka xun beledka xun kitaabka xun tv-ga xun wax allaaliya wixii noocaasiyo shar wadaana aakhiriyo adduunba waa ku seejinayaan oo waad dib yeelanaysaa idan qofka mu'minka ahi waa inuu doortaa saaxiibka wanaagsan wasala allahu calaa nabiyina moxamed wala alihi wasaxbihi wasallam